dowladda Canada waa mid ka mid ah dowladaha ugu waaweyn uguna caansan ee dunida. Waxay 3 gobol iyo qaybo fara badanba ku leedahay Ameerikada Waqooyi. Haddaba aan idiin soo gudbinna xaqiiqooyin laga yaabo in markii ugu horreysay aad ka maqleyso waddankaasi Canada. magaca Canada ayaa waxa uu ku yimid faham xumo xagga luuqadda oo dhacday qarnigii 16aad kadib markii uu maqlay baarihii reer Faranse ee Jacques Cartier qabiilada Iroquois oo ku tilmaamaya halka ay degan yihiin ama deegaankooda ugu yeeraya magaca Canada waxayna la micno tahay tuulo ama meel degan yahay. adeegsiga ereygaasi oo markaa kadib batay ayuu baaruhu u maleeyay in uu yahay magaca halkaasi. Canada waa dowladda labaad ee caalamka ugu masaaxadda iyo badka weyn Ruushka kadib, waxaana badkeedu gaarayaa 10 milyan oo kiiloomitir iskuweer ku dhawaad. waxaa ku nool gobolka California ee waddanka Mareykanka keligii tirada in ka badan dadka degan waddanka Canada, iyadoona badka waddanka Canada uu dhow yahay isla badka waddanka Mareykanka. waxayna gaarayaan dadka degan Canada 36 milyan oo qof, halka dadka degan gobolka California oo kaliya ay gaarayaan 39.4 milyan oo qof. Canada waxaa laga diiwaan geliyay heerkulkii ugu hooseeyay ee taariikhda, midkaasi oo gaaray 81 Fahrenheit, waxayna ahayd sanadkii 1947. dadka degan waddanka Canada albaabada gawaaridooda waa ay furaan mana xiraan si ay ugu suuro gasho inay ka cararaan ama ay ka baxsadaan haddii uu weerar ku soo qaado madax kutiga ama dubka qudbiga. waddanka Canada waxaa ku yaala harooyin aad u fara badan oo la oran karo waxay ka badan yihiin kuwa ku yaala caalamka oo idil. waxaa laga helayaa wax ku dhow 2 milyan oo haro, iyagoona daboolaya oo qaadanaya ku dhawaad 8% ka mid ah badka dhulka. Canada ayaa 4 kala wadaagta 5 harood ee ugu waaweyn, waxayna la wadaagtaa waddanka Ingiriiska, waana halka ugu badan ee laga helo biyaha macaanka ah. nin Kanadiyaan ayaa waxa uu badbaadiyay cunug yar oo ku jira sanduuqa qashinka, balse markaa kadib wuxuu si kadis u ogaaday inuu cunugaasi isaga dhalay, iyadoona ay u dhashay haweeney xiriir hoose kala dhaxeeyay. in ka badan 50% dhulka Canada waxaa ku daboolan silsilado badan oo kaymo ah, iyadoona 10% kaymaha caalamka ku yaala qayb ka mid ay ku yaalaan waddanka Canada. sidaa darteed Canada ayaa waxay leedahay kaymooyin badkoodu la egyahay wadamada Japan, Talyaaniga, Faransa, Germany, Ghana, Cameroon, Sweden, Kuuriyada Koonfureed, Uruguay iyo weliba Ingiriiska. wadada ugu dheer ee caalamka waxaa laga helayaa waddanka Canada, waana wadada dhererkeedu gaarayo 1900 oo kiiloomitir. 9 sano oo isdaba joog ah laga bilaabo sanadkii 1994 ilaa laga gaarayo sanadkii 2002. daraasad Ingiriisku soo saaray ayaa lagu sheegay in Canada ay ka mid tahay 3 dowladood ee ugu wanaagsan uguna maciishada iyo nolosha wanaagsan ee caalamka. Canada ayaa meel sare ka gashay wadamada ugu waxbarashada wanaagsan ee caalamka, caafimaadka ay xoogga saaraan, sidoo kalena jariimooyinka iyo dambiyadii ayaa hoos u dhacay. Canada ayaa waxay caan ku tahay inay tahay mid ka mid ah wadamada ugu qanisan uguna hodansan ee caalamka, taasina waxaa sabab u ah ganacsigeeda xoogga badan ee aadka u sareeya, sidoo kalena shacabkeedu waa kuwa iscafiya oo dadka kala soo dhaweeya. midaasina waxaad ku dareemaysaa dadka muhaajiriinta ah ee soo gala waddankaasi loolama dhaqmo si adag. 75% ka mid ah dadka reer Canada waxay degan yihiin meel ka fog 100 meel xuduudda Mareykanka, midaasina waxaa u sababa qabowga cimilada ee waqooyiga waddankaasi. jasiiradda Newfoundland ayaa waxaa laga helayaa jasiiradan nisbada ama tirada ugu badan ee xayawaanka lagu magacaabo moose. isla sababka xayawaankan ayaa waxaa jasiiradan ka dhaca shilal gawaari oo u dhaxeeya 500 ilaa 600 sanadkiiba. Canada ayaa waxay haysataa 172 bilyan oo barmiil oo ka mid ah shidaalka ceeriinka ah, iyadoona markaa noqonayso dowladda saddexaad ee ugu weyn ee haysata shidaalka ceeriinka ah. sidoo kalena caalami ahaan xagga kobaca dadka waxa ay gelaysaa kaalinta 8aad. arrinta aadka u faaftay ee ku aadan waddanka Canada inuu yahay waddan isaga dhan wada baraf ah waa midaan sax ahayn, sababtoo ah Canada waa ay noocyo badan tahay sida dhulkeeduba u kala duwan yahay, iyadoona mandiqooyinka xagga waqooyiga aysan ahayn kuwa la degi karo, sababtoo ah cimilada qudbiga waqooyi ayaa waxay yihiin kuwa aad u adag, dhulkeeduna waa mid mar waliba baraf ah. halka ugu badan ee dadka Canada degan yihiinna waa koonfurta waddanka, waana xuduud dheer oo ay la leeyihiin
Shiinaha iyo Hindiyaba waa labada wadan ee ugu badan ee dadka muhaajiriinta uga yimaadaan wadanka Canada. Sidoo kale Canada waxaa jira dad badan oo muhaajiriin oo ka kala yimid Korea, Bariga Dhexe iyo waliba Bariga Qaaradda Aasiya, iyadoona ay degan yihiin wadanka Canada boqolkiiba 10 ka mid ah dadka qaxootiga ah ee caalamka. tirakoobyo rasmi ah oo la sameeyay ayaa la sheegay in dadka reer Canada markii 5 loo dhigo 4 ka mid ah ay tahay Kirishtaan, halka ku dhawaad boqolkiiba 45 ay yihiin Catholic, boqolkiiba 35 ay yihiin Protestant. dabaaldega ubaxa Tulip ayaa lagu qabtay magaalada Ottawa, iyadoo ubaxu ka koobnaa 3 milyan oo ubax oo tulip ah. midaasina waxay uga dan leeyihiin soo dhaweynta guga. caleenta geedka qeyqabka ayaa waxaa adeegsaday dowladda Canada, iyadoona calaamad ahaan ka dhigatay sanadkii 1700. laga bilaabo 15 Febraayo 1965 ayaa caleen ka mid ah geedkaasi oo gaduudan waxaa lagu dhajiyay calanka Canada, iyadoona caleenta markaa kadib noqotay calaamad ku dhagan calanka wadankaasi. sidoo kale waxaa ka mid ah calaamadaha kale ee la isticmaalay xayawaanka qunduska, iyadoona sawirkiisa laga dul helayo lacagta yar ee 5 senti. Canada ayaa dadkeeda waxaa loo qadariyaa mid ka mid ah mujtamacaadka ugu waxbarashada badan, iyadoona kala bar dadka degan wadankaasi ay haystaan darajooyin sare oo xagga cilmiga ah. Mareykanka ayaa Canada ku duulay 2 mar waxay ahayd sanadkii 1775, halka markii kalena ay ahayd sanadkii 1812. labadii marna waa ay ku qasaareen. dadka degan wadanka Canada waxaa u suuragal ah inay dalbadaan alwaax lagu dhajiyay sawirka boqoradda Elizabeth II, waxaana loogu keenayaa si bilaash ah ama lacag la'aan ah. sanadkii 1943, maalin maalmaha ka mid ah xukuumadda wadanka Canada ayaa waxay ka soo qaaday ama u ictibaarisay mid ka mid ah qolalka isbitaalada ee wadankaasi Canada inuu yahay dhul uu leeyahay wadanka Holland, si ay ugu dhalato gabar u dhalatay wadankaasi Holland. waana mid ka mid ah dalabyada Holland si loo ilaaliyo neenaasteeda amiiradda ama boqoradda. laga bilaabo waqtigaana sanad waliba Holland waxay u soo dirtaa wadanka Canada kumanaan ka mid ah ubaxa tulipka, iyadoo aad ugu mahadcelinaysa hawshii wacneed oo ay sameysay dowladdaasi Canada. sanadkii 2015 waxaa la qabtay inuu dhashay wadanka Canada kadib markii uu 100 buufimood ku xiray kursi ka mid ah kuraasta beeraha, iyadoona kursigaasi dul heehaabayay magaalada Calgary. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. fadlan hadday tahay markii kugu horeyso soo booqato kanaalkan, rukumo oo subscribe dheh si ay kuu soo gaaraan dhammaan muuqaalada halkan aan soo gelino. fi amaanillah.